inantii mar alla markay bogsatay waxaa dhacday hooyadii ayada dhashay ayaa wixii ku tiri naa maxaa ku bogsatay hooyada laga filayay damqashada hooyada laga filayay inay u jircood gabadheeda now marka dambe waxaa dhacday gabadhii markii ninkii lagu daray 2 bilood uura ayay yeelatay wuu dilaa wuu hagareeyaa si xun buu u galay wuu ka soo riday ilmihii xarig bay soo qabatay way isdaldashay way isdaldashay gabadhaas marka yaa u sababa dhimashadeeda yaa u sababa waalidiinta si sharaf leh waxaan ugu codsanayaa inay labada qof isjecel inay is siiyaan macnaha reer isku dhisaan xitaa laftarkooda ayaga kharash geliyaan hadii kale waa gabadhaadu waa isdilayba hataa sidaas macnaha sidee rabto hataa u sameynayso ninkay keensato aad u ogolaa weydo gabadhaas waa isdilay production السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوتيوب كان أنا نقدر ونسان وسمفالي وفشيال وساي ميديا سودو هذا دمانتين وحيد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام قساءات وحنون بدن دودتنا وحاد عضي إنما مركا وحاد عضي إنما xiriirna hadda ka hor nin bay xiriirkooda dhexey jireen markaa wiil saaxiiban ah baa iga sheekeyn doono waxaa dhacday xiriir baa muddo 3 sano ayay ka wada dhexeeyeen laakiin intaysan xiriirka bilaabanin ka hor gabadha isaga macnaha isku xaafad bay ahaayeen amba sida la yiraahdo amba jaar ayay ahaayeen gabadha marka dambe waxaa dhacday wiilkan xaafadda mar waliba macnaha xilliga shaqada ayuu wuxuu soo aadi jiray farmasiga meel farmasi buu ku shaqeey jiray goob ganacsi oo farmasi ayuu ku shaqeey jiray xilliyadii oo shaqada goobtii xilliyada shaqada loo soo caraawayo marka la gaaro gabadhan waxay isku soo xaadiri jirtay bannaankay ku cadaysan jirtay marka dambe waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah wiilkii ay ka heshay balse uma aysan sheeganin waa ay ka qarsatay waa bacdeen wiilkii maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii waxay ku aragtay asigoo meel farmasi fadhiyo ayay ku aragtay marka meel farmasi asigoo fadhiyo ay ku aragtay ayaa waxaa dhacday maxay heeto sidaas buu u eegtay marka indha shareer bay wadatay marka hore way is arkayeen labadoodana asagana wuu ka helay balse uma uusan sheeganin ayadana way ka heshay uma aysan sheeganin balse waxaa dhacday nasiib wanaag gabadhan ayadoo suuqa macnaha iskuul bareefad bay dhiganaysay oo iskuulka bareefadkay soo aaday ayadii waxay isla socdeen inaanay saaxiibo yihiin bay isla socdeen marka dambe waxaa dhacday gabadhii wiilkii sidaas bay u eegtay saas bay u eegtay way baxday bareefadkeeda meesheedii aaday bareefadkeeda soo dhammaysatay bareefadkeeda markay soo dhammaysatay kadib ayaa waxaa dhacday wiilka farmasiga bay ugu timid wiilka farmasi bay ugu timid farmasiga markay ugu timid bay ku tiri asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal xaalad ka waran waan fiicannahay ayee walaal waxaan doonayaa kaniini waan doonayaa madaxa xanuunayo kaniini waan doonayaa bay tiri laakiin waxaa la yidhi walaal mi ahaa anaga jumlad baan iibinaa balse tafaariiq ma iibino tafaariiq annaga ma iibino balse jumlada iibinaa okay markaas waxay ku tiri walaal hadda waa yahay kaniini maan kaa helin bay ku tiri marka ayada uma socoto kaniiniga uma socoto balse ninkaanay rabtaa qaabay macnaha ay ula hadasho ayay doonaysaa marka qaabkii waddaa loo marayaa moogta marka wuxuu ku yidhi okay waan ku siinayaa wuu ku yidhi kaniini strib ayuu soo bixiyey wuu siiyey barashtimol ah markuu siiyey kadib ayaa waxaa dhacday gabadhii marka dambe waxaa dhacday
waxay tiri wallaahi inan wanaagsan baa tahay inan fiican baa tahay aad baan kaaga helay wallahi waa isoo jiidatay inan aad u qurux badan baa tahay maasha allah bababa maasha allah aad macnaha ammaan bay meesha kaga bilowday kadib waxay ku xijisay nambarkii bay ku xijisay maxay ku tiri walaal nambarkaaga ii sheeg wallaahi inan wanaagsan baa tahayoo waaba ku soo xariirinayaa inan wanaagsan baa tahay maasha allah okay asaga inanka wuu iska aaminay waayahay wuu yiri wuu siiyey nambarkii markuu siiyey xaafadda ee tagtay bay waxay ku tiri way soo wacday way soo garaacday mar alla markay soo garaacday bay waxay ku tiri aniga aqoon ma ii leedahay aniga aqoon ma ii leedahay markaasaa la yidhi aqoon aniga kuuma ma lihi walaal isuga sheeg balse laga yaaba inaan ku aqoonsado okay isaa la yidhi haa oo inantii oo hebel ma inanta caseedee nooca shalmada wadatayba macnaa waxyaabahaasoo kaga bilaaba asaga haa marka inankii wuu naxay marna wuu farxay because kadis bay baasha ku noqotay wuxuu raadinayey qalbigiisa uu ku hayay balse haddaa u badhigtana amay kugu kululeysaa oo jac kugu dhijisaa buu siri yaa marka dambe waxaa dhacday inanta markaa waxay ku tiri aad baa ii soo jeedatay waan kaa helay balse anin kaniin oo ma aanan soconin soo waxad karata maahan adiga ayaan kuu socday waana kaa helay balse mar waliba sidaas baa ii soo dhaaftaa muddo 3 bilood baan ku raadinayay marka waxaan ilaahay nasiib wanaag ugu hagaajiyey ruuxii aan 3 bilood aan qalbigayga aan ku haagay yaa in aan maanta indhahayga aan saaro aad baan u faraxsanahay farxaddeedana lama soo koobi karo ayay ku tiri bacdal farxad marka dambe waxaa dhacday asagana kolley wixii uurka ku jira afkaa ku jira oo soo tufay oo wuxuu ku yidhi wallaahi inaan aad u wanaagsan baa tahay oo inaan aad u qurux badan baa tahay oo waan kaa helay barnaamijyadaas u galano adiga labadii way isfahmeen oo isla jaan qaadeen mar alla markay isla jaan qaadeen yaa mar alla markay isla jaan qaadeen ee nolosha isla wadaageen ee dhibta dheefta isla halgameen muddo sanad markay marayaan ayaa inantii ayaa isagas labadooda sawir bay isla galeen oo bacdin sawir markay isla galeen baa waxaa dhacday sawir markay isla galeen ayaa waxaa dhacday marka xilligaa waxa weeyaan xilliga oo balingalada sawirada ma arkin oo warqadaha way soo qaadatay habeenkii marka ay seexanayso way eegaysaa saas bay u eegaysaa way daawanaysaa markay saa u daawato way gamay marka way seexanay markay seexato subaxii way soo toosi armaajada korkiisii saaree marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday inanka sidaas bay ayada aad u jecleed asagana wuu jeclaa kama yareen kama liidanin marka dambe waxaa dhacday walaalkeed baa maalin maalmaha ka mid ah asagoo wax raadinaayo unbuu wuxuu arkay sawirkii naaninkaa maxaa waaye naaninkaa muxuu noo ahaa ninkan waxaa layidhi maxaa kaa quseeyey tiri maanigaa maxaa kaa quseeyey leedahay wallaahi bilaahi tala akhlaaqdaa kugu dhimay wuxuu u soo qaatay baashi la yidhahdo koronto yaa bilaa kabsaar bay aheedoo la dhacay web gabadhii korkeeda dhan waxay noqotay way dirdiirantay macnaha toxobkaa ka dhacay toxob gabadhii taleefonkana wuu ka qaaday bareefadkana wuu ka reebay gabadhi meeshuu ku celiyey maalmaha ka mid ah wiilkii muddo isbuuc buu raadinayey markaa wuu waayey inantii la socotay ayuu nambarkeeda raadiyey kolba sidoo nambarkeeda u heebiyaba wuu helay wuxuu ku yidhi bal wuu dansan yahay maxaa dhacay maxaase wuxuu jiraan markaasaa layidhi ma tegin ma booqanin soo cad garata maaha marka anaa tegayo bal waa soo fiirinayaa haye kolkay sidaa u tagtayba ee soo eegto ayaa waxay aragtay isbuuca waayah aag soo wareegatay waxay aragtay korkeedoo fiifiiqan bilaa arxandaro oo weliba macnaha naxariis laaw inuu yahay waa walaalkeed wax saas u garaacayo soo cad garata maaha waxaa dhacday inantii markii saa loo eeg nabaradii iyo korkeeda dhan waa fashfash
kolka nabaradii kolkeeda saa u fashfashay ayaa waxaa dhacday maxay heeto inankii ayuu soo wacday waxay ku tiri walaalow sidaas baa wax loo haystaa ogow yaa walaalow ogow markaa waxaa dhacday maxay heeto wuxuu yidhi waa midaan kaa codsanaya buu yidhi bal ii imo korkeeda ma dheecaan baa ka socda buu yidhi dheecaan miyuu ka socdaa korkeeda haa dabcan wuu ka socdaa bay tiri oo waayo macnaha korkeedana wuu diirdiiran yaaba diirkii baaba ka dhacayba diirkii markuu ka dhacay ayaa waxay samaysay ninkii wuu soo wacay wuxuu yidhi ii imo daawooyin baa ku diyaarinayaa alxaasil alcamuum daawooyinkii wixii baa loo diyaariyey inantii way u timid mar alla wuu wacay inantii markuu wacay bay u timid markuu wacay ay u timid ayaa daawooyinkii wax dhan loo diyaariyey waa loo geeyey mar alla marka daawada loo geeyey ayaa waxaa layidhi daawadan waxa kuu soo dhiibay yah okay waad garanaysaa ogow haywaaya markaas daawadii gabadhu ilaa sa u isticmaalaysa ilaa bamaatadana marka saaxiibadeed baa dusha u marmari jirtay way bogsatay inantii mar alla markay bogsatay maxaa dhacay he yah inantii mar alla markay bogsatay maxaa dhacay waxaa dhacday hooyadii ayada dhashay ayaa waxay ku tiri naa maxaa ku bogsatay subxaana allah hooyadii laga filayey naxariista hooyadii laga filayey damqashada hooyadii laga filayey inay u jirarcood gabadheeda inay u jirarcood laga filayey maxay ku jawaabtay naa maxaa ku bogsatay yah bal dib isu raaco oo hooyo oo ceynkaasaa ma jiraa hooyo ceynkaasaa ma jirtaa talow wallaahi bilah waxaan is leeyahay in macnaha odaga ciilka ay u qabtay inay gabadheeda kaga jarayso waayo dadka isku mid maahan way kala duwan yihiin hooyooyinka way kala fiican yihiin been kuu sheegi hooyooyinka waa seem ku dhahay hooyooyinka way kala fiican yihiin wayna kala naxariis badan yihiin wayna kala damqasho badan yihiin hooyooyinka markaasaa inantiibaa hooyo anaa daawada naa maxaa ku bogsatay marka daawada ma adiga u keenay baa layidhi haa daawada anaa u keenay daawadaad ma u keentaa okay aywaaya sidii bay marka dambe arrinta layskula ogaa sida marka layskula ogaa waxaa dhacday isbuuc kadib adiga gabadha moobeelkeeda waa la siiyey iskuulkeeda dib ugu laabatay waxaa layidhi nin dambe hataa kugu maqlo akhtiyaarkaa baa layidhi isjirwaryaa nayaaha isilaali wallaahi billaah war labada isjecel maxaa la isku diidayaa ma isa siiyaan ma cadowtinimada meesha uu ka marayo bal fiiri yaa marka dambe waxaa dhacday jacaylkiibaa meesha ka sii laba jibaarmay way sii laba socdeen adilaa ya bay noqotay marka dambe wuxuu yidhi muddo 3 sano jacaylkeenu sii maraya ahayd intaan ka badan ma dulqaadan karaye walaalay hooyaan u tegayaa si macnaha aabbaha ay ugula xiriirisa lamarkiisa aan u helo iyo amba adeerada aan ula xiriiro aabbaha amba adeerada amba walaalaha si macnaha lambarada aan ugu helo hooyaan u tegayaa buu ku yidhi inankii wuu baxay wuxuu u tegey wiilkii wuu baxay wuxuu u tegey hooyadii markuu u tegey buu wuxuu ku yidhi asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waayo bal fiiri yah waayo adiga wada martida nabigeena calayhi salaatu wasalaam martida hala sharfo hala ixtiraamo hala soo dhoweeyo buu yidhi yah laakiin martida wujikaag ha kula horteginaa lagu dhah yah waa loo dhoolo caddeeyaa waa la soo dhoweeyaa macnaha hadalka wanaagsan aad leedahay sadaqo waaye yah alkalimu dayib yah marka waxaa waaye marka macnaha hadalka wanaagsan inaa qofka martida amba qofka walaalka inaa ku tiraahdo waa ku qasban tahay because inantii markii uu maamadii ma inantina meeshay taagan tahay maamadii markii ay ku tiri maxaa tahay adigu waayo markii tiri maxaa loogu jawaabay hooyo soo dhowow anigu waxaan ahay inantaada
ayaa xiriir naga dhexeeyo muddo 3 sano wada soconay marka hooyo si naxariis leh si kalgacayl ay ku jirto si waalidnimo ay ku jirto hooyaday baa tahay waalidkaygii baa tahay yaa hooyo waxaan kaa codsanayaa inaa inantaada siiso haddaan been sheegayna waad weydii kartaa nayaahe wuxuu ka hadlayaa ninkan maxay ugu jawaabtay hooyo waa sax xiriir baa naga dhexeeyo waan isjecelnahay nolosha dhabtaan wadaa waxaad ka sheeg waxaa noo nolol la-een inay naga tahay waa wejigaa dharbaxsha loo geliyey inantii way carootay alcamuum waxaa dhacday inankii waa loo diiday oo kuwa cidna kugu xiriiri maayo orosocaalin dabadeedna marka loo diiday waa inantii baa yaas celinayay haddaba yaas celinaya meeshaan galgacayl iyo naxayo dareenkii ma kala haraayo kala hari maayo dareenkii baa soo jiidanaya gabadhan jacayl baa haayaleen waa jacaylkuna wax ka xanuun badanna ma laha soo cod garato maaha marka dambe waxaa dhacday inantii hooyadeed markay qolka ay gashay maqsinka amba qolka ay gashay sharmad bay soo xirata bilaa dacas way soo carartay inankiiba u timi intan uma socdo adaan ku doonaya bay tiri adaan ku rabaa adigaan kuu baahanahay cid kalena ma doonayo ogow bay ku tiri saabuu u eegay markuu saa u eegay bilaa dacas wuu naxay oo ka dacaskiiname dacaskii aaway markaasuu ku tiri ma dacasi waxaa ka sheekeynaysa waxay dacas miirba uma hayo bay tiri miirkaygu waa adiga yaa adigun baa ku baahnaa adigun baa ku jeclahay marka dambe waxaa dhacday ninkii waa isla baxsadeen waa isla tageen waxay aadeen guri bay aadeen wuu soo qanciyey gabadhi marka waxaa la yidhi hooyadaa maxay ku tiri inankaas haddaa u dhowaato waa adigu ku khafiifay jecesha waa u jeedaaye inankaas haddaa u dhowaato oolaadaada oolaad burburay allah ka dhigo oolaad lagu khasaaray macnaha allah ka dhigo kow gurigaagana irsaaqad ma soo gasho subxaana allah laa xawla walaa quwata illaa billaah maxay sidaa u gelaysaa maxay mustaqbalkeeda ugu hor istaagaysaa waa hooyo dhan fiiri bal fiiri eeg bal ila eega oolaadaadana kuma anfacdaa liri gurigaagana irsaaqad ilaahay maba soo dhigaba malaa'igtana allah ka haadiye subxaana allah maxaaba kuu dhimanba laakiin habaarkaas mar un bay qabanaysaa haddii gabadhii siday hooyadeed rabto ee u samey weydo sax marka dambe waxaa dhacday ninkii saa markuu nooc arkay wuxuu yidhi walaal miyaa maya maadaama hooyada ay sidaa tiri aniga ma samayn karo way igu adag tahay marka hore wuxuu go'aansaday inuu gabadhii la baxsado ismiirsadaan ayuu go'aansaday laakiin marka dambe wuxuu go'aan ku gaaray gabadha in maxay aheeto ay macnaha oo yidhaahdo maya walaalima diyaar u mihi saas marka la yidhi okey gabadhii waa xanaaqday isla markii maalinka ku xigtay nima ilmaadeer yihiin baaba dhab lagu dhahay now marka dambaa waxaa dhacday gabadhii markii ninkii lagu daray 2 bilood oo uura ayay yeelatay wuu dilaa wuu hagareeyaa si xunba u gala wuu ka soo riday ilmihii uur kale haddana qaatay wuu dilaa wuu silciyaa ilmihii labaad way ka soo laabay ilmihii saddexaad bay 2 mataana ay dhashay 2 mataana markay dhashay waxay ku tiri hooyo miyahaa anigana kan ma doonayo sidaas buu ugu samaynayaa sidaas buu u yeelayaa wuu dilaa ninka aan doonayno adiga ii diidaye hooyo maxaan sameeyaa markaasay tiri wax ma kuu sheega cagadhigo ninkaas baa doonaysaa kuu jeedaaye ninkaas baa u carcararaysaa wax ma kuu sheega ninkaaga reerkaaga dhaqo gabadhii waxay samaysay gara weyday oo xaggan maamada laga soo caburiyey xarig bay soo qabatay way isdeldeshay way isdeldeshay gabadhaas marka yaa u sababa dhimashadeeda yaa u sababa habarta hooyada ayaa u sababa because labada waalidiinta waxaa ka codsanayaa waalidiinta si sharaf leh waxaan ugu codsanayaa inay labada qof isjecel inay is siiyaan macnaha reer isku dhisaan xitaa laftirkooda ayaga kharash geliyaan waayo ajir baa ugu sugan ma fahamtay marka waxaa waalidiinta waxaa leeyahay in macnaha oolaadooda macnaha inaysan waqtigooda mustaqbalkooda aysan ka dhuminin ay sameeyaan inay isku guuriyaan labada qof oo labada ruux oo isjecel inay isku keenaan ee isku daraan
haddaa laba isjecel aa kala dheereyso weligaa horumar ma gaaraysa waalidow waalid waxaa idinka codsanaa marka haddii kale waa gabadhaadu waaba isdileeba haddaa sidaas macnaha sidee rabto haddaa u samaynayso ninkay keensata aad u ogolaa weydo gabadhaas waa isdilee alloor waxaan idinka codsanayaa asxaabay waxaan idinka codsanayaa in maxay heeto waalidiinta waxaan ka codsanayaa in maxay heeto ay arrimahaas ay ku dhaqaaqaan insha allah labadaas jecel ee isku wada guuriyaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Production.